Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ku caan baxday dhinaca wax soo saarka. Dadku waqti walba waxa ay ku mashquulsan yihiin tacbashada beerahooda. Haddana degmadu waxa ay leedahay suuq loo iibgeeyo dalagyada ka soo go'a beeraha. Badi dadka ku nool degmada Afgooye noloshoodii waxa ay ku tiirsan tahay dhinaca wax soo saarka beeraha. Waxaan booqasho aan ku tagay mid ka mid ah beeraha ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana halkaasi ka socday waraab lagu hayay dalagyada ku abuuran beerta. Waa kan mid ka mid ah beeraleyda degmada Afgooye oo iga warbixinaya waxyaabaha ay tacbayaan. Anigoo ah beeraleyda Afgooye ugu weyn oo maanta tacbayo alaabtan khudaarta, yaanyada, babaayga, barbarooniga, ansalaatada, koostada wax dhan. Yaanyada waxa waaye 3 bilood waaye. Gacan saarkeeda markaad gurashadeeda adiga arabtid. Babaayga ku soo xigay babaygana waxa waaye 9 bilood. Aad ku gacan saaraysaa. Waxa ku soo hirtay koostada. Koostada idana 40 maalmood waaye. Kabsarka ku soo hirtay idana 40 maalmood. Karootada waxay tahay idana 3 bilood. Maaska oo koostada 8 waaye. Maaska kabsarta 2 waaye. Maaska karootada akisir uron oo 30 ah. Haddana kaaga sii dara haddana liintii dib u dhac u maaday. Liintii hore waxaan gadi jirnay $12 $15. Haddana waxay imaaday $6. Ya dibka maanta ugu weyn aan ku jirno liimada xageeda waaye. Oo wabigana alxamdulillah Ilaahay nagu soo deeqay oo noo buuxo. qudaarta aad ay uga soo dhacay sababtoo ah koosta waa 8 salaadka baa salaadka 20 ilaa 30 waaye marka suuqa aad u qiimaha ugu hooseeyo waxa lagu aanay webiga hal mar yimid oo muddo maqnaay 2 bilood hadda hal mar yimid halkii mar dadka oo wada shubeen baaska beeraha adiga xasan saasa marta qiimo jabdaysta kan beeraleydu waxa ay sheegeen inay faa'iido ku qabaan wax soo saarka beeraha waxayna xilli walba ku mashquulsan yihiin ka shaqeynta beerahooda. Shir Cabduqaadir Maxamuud, Honkebel TV, gobolka Shabeellaha Hoose.